Ayaga hore waxaan sameyn jiray waxa qashin markuu soo aruuriyo isku xirxiro oo guriga dhan qashin meer naga dhigo waa ka daadshaa oo soo celiya waa ka daadshaa caagadaha balaastikada ah bateriyaasha danabka kaydiya iyo kaartoomada lagu sajalo alaabaha ayaa qayb ka ah agabka markii aan danta aan ka lahayn aan ku qabsano aan geyno goobaha qashin qubka ah si aan isaga fogeyno balse arintu waa ay ka duwan tahay alaabtaas oo la qubo. Cabdiraxmaan Mahdi Shidane Qaarey wuxuu isticmaalaa safiitooyinka ka soo hara dhismooyinka, tubooyinka, kartoomada iyo haraadiga waxa aynu qubno si uu ugu sameeyo waxyaabahan oo maskaxdiisa ka soo maaxday. Cabdiraxmaan ayaa inooga warbixinaya qaybo ka mid ah hal abuurka uu soo saaray. Alaabtan arkeedaan waa farsamada gacanta gaar ahaan waa waxyaabo aan madaxii ka curiyo. Hadda waxa ka mid ah alaabtan oo kale Troniskana ka mid ah. Troniskana oo kale hadda waxaan ka suubiyo alaab wadanka laga heli karo. Inkastoo caqabado badan ay jiraan laakiin wax wadanka laga heli karo ka suubiyo. Hadda kale tan oo kale waxay leedahay meel laga daaro oo daardimiye leedahay. Baashan u jeedin waa hoofer ama loo yaqaan vacuum cleaner afka qalaad lagu dhaho oo loogu talagalay in lagu nadiifiyo minaha wasaqada miiska iyo wixii ku mishaadil dhigi jiro waay. Laakiin tan waxa uu talagalay my personal ahaan u sameysay oo shakhsi ahaan waxa uu talagalay miiska iyo wixii qashin yaal inaan ku nadiifsado. Ilaadan waxa la B-2 spreader laha waa nooc kaliya oo isticmaalo break ilaa hadda macna adduunka kale aan laga soo saarin shaqada ilaa hadda lama hayo laakiin aan ahaan sawir aan ku arkay bacdi waxaan suubiyo isku day aan suubiyo tan oo kala soo saaray. Samsam Cali Warsame oo ah hooyada Cabdiraxmaan Mahdi Warsame ayaa inooga sheekeynaysa markii ugu horeysay oo ay ku aragtay hal abuurka wiilkeeda. Waxaan ku arkay asagoo 13 sano jiro laakiin 5 sano markuu jiray iyo wax sameyn jiray nin xifrada ma aragtay ku wanaagsan wuxuu ahaa wax walba oo dhamaaday intuu jidka ka soo qaaday misana dib u casriyeeyay marka laakiin 13 sano markuu jiray iyo aad inuu wax u sameeyo wax soo saarkiisa wax muuqdo uu noqdo uu ahaa ilaa heerka hadda uu maanta taagan yahay in ma aragtay uu sameeyo iskoolkii uu ka qalin jabiyay uu ma aragtay xafiiskii u fadhiyo. Caqabadaha jira ayaa ka mid ah in Muqdisho aan laga helin shay'aasha yaryar ee uu u baahan yahay oo dhameystiran balse waxa uu ku qasbanaadaa in uu iibsado alaabo badan si uu uga isticmaalo shayga uu u baahan yahay oo kaliya. Inaad helin horta wadankii baa ka helin qalabka aad ka helin waxyaabo qaar hadda waxa jiro oo shaqeynayo oo cusub dadka u isticmaalaan sida makiinada cabitaanka oo kale iyo nalalka iyo wax gudaha ku isticmaalaan oo ku shaqeystaan faa'iido u leeyihiin. laakiin aan ahaan marka soo gato waxa laga yaabaa in kala baxo jib series walaas laga kala baxay laga yaabaa jibsaas kaliya uu soo gato aslan kala baxo inta kale ay anficiida laga yaabaa taasna waxa keenayay in wadankiyo ilaa halkiis u yahay 30 sano amal iska bursanay aan qalabkii loo baahan laga helin hadda duweynaha caalamka kale sintiyaal la gadaa oo shay kasto sinti baalki muxuu diyooda u yar resistor u yar waxa soo dhan xabad u helay sinti u helay sintiyaal gadi laakiin hadda marka dhaho xamar anoo joogo adho waa u baahanahay waxay noqonaysaa shay shaqeynayo suuq yaal in kala soo dhaxbaxo ka soo furtay noqonay oo inta kale qof in noqdaa meel iska dhigo oo badana waxa way qarashka meeshan qarashka u baameeso ee garaac caqabadaha u badan oo kala kulmo ankaas kuwaas ka mid agab badan oo uu soo saaray Cabdiraxmaan Qaarey ayaa looga baaqsaday soo iibsashada alaabaha dalka dibadiisa laga keeno. Bareeskan aad u jeedaan waxa suubiye Cabdiraxmaan Mahdi Shidane kaasoo hadiyadahan isiye wuxuu ka kooban yahay kartoon iyo waxyaabo kaleeto wuxuuna ku shaqeeyaa aad u jeedaan 3 god waxaan u isticmaalaa kombiyuutarka waxaan u isticmaalaa mobilka waxaan kaloo u isticmaalaa rooxada waana ka tayo fiican yahay kuwa laga keeno marka waxaan kamid ahay isticmaalayaasha Cabdiraxmaan Mahdi Shidane oo ah hal abuure Soomaaliyeed barnaamijyo u diyaariyay mid kamid ah ayaan aad u isticmaalay barnaamijkaas oo ah maxaan ku raahdaa lightka lagu akhristo marka buugaagta ama wax lagu akhristo oo waliba flexible oo aan isleeyahay waa wax badan oo ka fiican yahay midka caadiga ah ee suuqyada lagu iibiyo. Albaabada hanka iyo himilooyinkiisu waa kuwa sareeya dadaal iyo dhiirigelin oo waalidkiis ka helay ayuu intaas ku soo gaaray Cabdiraxmaan Yare. Rajooyinka uu leeyahay Ilaahay inuu ku guuleeyo duco baan la daba taaganahay intii muslimiin oo xifrad lana inay sidaas islaamida u soo waalidiinta ay usoo maaragtay kabankaabana rajeynayna. Waxyaabaha cajiibka ah ee hal abuur Cabdiraxmaan Yare markii aan gurigiisa tagnay aan ku aragnay ayaa waxa ka mid ahayd in uu la socday dhaqdhaqaaqa qolkiisa iyo dadka soo galaya guriga isaga ayaana farsameeyay kaamirada u xiran
balse ha inoo sharaxo ujeedka uu sameeyey. kaamiradan ujeedaan waa kaamiradii markaa soo galeedeen aan idinka arkay halkan computerka ku xiran tahay tan oo kale hadda tan meelaha u talgalay miiska inaa saarto mid kale waxaa jirta albaabkii ugu xiran oo u talgalay macnaha wixii soo galay waxaasna iska suubsado just macnaha waxa uu suubi inaa awood u leeyahay inaa suubi kar bas ogaanayo. sanad ka hor ayuu dhameeyey waxbarashadiisa dugsiga sare balse weli ma uusan u gudbin heer jaamacadeed. haddaba maxay tahay caqabada ka haysata? hooyo Samsam Cali Warsame ayaa ii sheegtay wiilkeeda in uu u baahan yahay culuum la xiriirta farsamada gacanta jaamacada dalka dibadiisa ah balse aysan u awoodin. secondarygiina wuu dhameeyey laakiin weli jaamacad ma uusan bilaabin oo jaamacad dalka wuu naga diiday. Yurubna anaga dad maaragtay iska nimca badanaanahay way noo masaabixi weysay. waxaa jira dhalinyaro badan oo la mid ah Shidane balse waayay hal abuurka meel ay ku soo bandhigaan iyo cid ka caawisa oo ay ka mid yihiin waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay u sameeyaan ama ay u soo bandhigaan hal abuurkooda. Isxaaq Xirsi Maalin, warbaahinta Goobjoog, magaalada Muqdisho.